Hello guys, welcome to another video. Halka aad nagala daawanaysaan ama nagala socotaan waa channelka Arizona. Waxaan maanta videogan idin soo jeedinayaa anigoo Mr. Arizona. Waxaan maanta ku falanqayn doonaa barnaamijkeenii taleefanka lagu magacaabo Nokia. Taleefanka Nokia oo ahaa kan ugu saameynta iyo dulqaadka tayada badan caalamka taleefanadii soo baxay sanadihii dambe. Shirkadda Nokia oo sanad walba soo xareyn jirtay adduun dhaqaale oo gaarayo ku dhawaad 13 bilyan iyo bar oo dollarka Mareykanka ayaa noqotay mid seelada ganacsi gebi ahaan isaga baxda sanadihii dambe. Guuldarada Nokia ayaa lagu sheegayaa mid noqotay ama mid tusaale ay ka dhigtaan ama daraasado badan ay ku qaataan ganacsato badan oo caalamka daafaheeda jooga ay ka dhigtaan mid tusaale. Shirkadda Nokia oo asal ahaanteeda ka soo jeeda ama ku taalo dalka Finland, magaca Nokia ayaa wuxuu ka yimid webi markaasi ku yaala dhanka bari ee dalka Finland. Waxaa fajaci ama kaag ay ku naqatay dadka nawaaxiga webigaas degan kadib markii ay hal mar saameyn iyo magac weyn u yeeshay webiga ku yaalo bariga Finland kadib markii shirkadda Nokia ay magacaasi qaadatay. Shirkadda Nokia markii ay la wareegtay sameynta taleefanada Nokia, shirkadda Nokia ayaa waxaa la aasaasay dabeeqadii 1865. Injineerka aasaasay ayaa markaasi wuxuu u dhashay dalkaas Finland. Shirkaddan asal ahaanteeda ma aysan ahayn markeedii hore mid samaysa taleefanada. Shirkadda Nokia ayaa asal ahaanteeda waxay xal ku ahayd mid samaysa waxyaabaha loo yaqaano aluminiumka ama qalab dhismeedka. Shirkadda Nokia ayaa samayn jirtay alwaaxyada iyo waxyaabaha laga sameeyo buugaagta sida waraaqadaha, waxayna saameyn ku yeelatay soo saarista alaabahaasi alwaaxyada. Shirkadda Nokia iskudaygeedii ugu horreeyey oo ay taleefan ku soo samayso ayaa ahayd dabayaaqadii 80-maadkii. Shirkaddan ayaa markii ay suuqa soo gashay ku guulaysatay taleefanada loo yaqaano maanta smartphone-ka ama jeebka ama gacanta lagu qaato. Xilligaasi shirkadda Nokia ay 80-maadkii ay soo galaysay ama ay ku soo caanbixisay soo saarista taleefanada smartphone-ka. Xilligaas ayaa waxaa kula loolamayay suuqa shirkadda lagu magacaabo Motorola. Shirkadda Motorola oo asal ahaanteeda laga leeyahay dalka Mareykanka oo xilligaas tartan adag kala dhexaysay shirkadda Nokia. Nokia waxa ay guud ahaan sayladda ama suuqa ganacsiga ay ka saartay shirkadda Motorola oo ayadoo taleefan soo samayn jirtay. Shirkadda koowaad ee keenta adduunka smartphone-ka ayay markaasi qatay shirkadda Nokia, balse shirkadda Nokia ayaa noqotay mid qaladaadkeeda iyo ciladaha taleefanadeeda ay ka soo gudbinayaan macaamiisheeda mid xalin weysay, taasi oo dabeeqadii keentay shirkadda Nokia in ay ku sii yaraato xayeysiimaha iyo isticmaalkeeda baraha bulshada iyo suuqyada ganacsiga kadib cabashooyin badan kaga yimid dhanka ciladaha dadweynaha. Taasi waxay jaanis u noqotay shirkadda Apple. Shirkadda Apple oo iyada markaas soo saartay smartphone ka duwan midka Nokia. Shirkadda Apple ayaa waxa ay soo saartay taleefan aanan lahayn wax lambar la riixa ah, waxayna soo saartay taleefan gebi ahaantiisaba touch screen ah. Shirkadda Nokia ayaa iyadana isku dayday in ay markaasi samayso ama ay innovation ku samayso taleefanadeedii. Shirkadda Nokia ayaa markaasi waxa ay soo saartay taleefan lagu magacaabo Nokia Lumia oo asagana ah taleefan touch screen ah, balse ma aysan noqonin mid u keenta natiijo wax ku ol leh. Ugu dambeyn, shirkadda Microsoft ayaa gebi ahaan iibsatay shirkadda Nokia.
mid ka mid a milkiilihii ugu weynaa ee u dhashay dalkaasi Finland ayaa bulshada soo hor istaagay asigoo markaasi ilmeynaya lana yaaban qiimaha aadka xaraashku ah ee shirkadda Nokia ay markaasi shirkadda Microsoft ay kaga iibiyeen shirkadda Nokia oo ay ku xirnaayeen 150 dal ku dhawaad caalamka ayaa gabi ahaan suuqa si tartiib ah ugu sii baxday sanadihii dambe taasi oo saameyn weyn ay ku lahaayeen shirkadaha Apple oo markaasi quality iyo isticmaalka iyo xagga qaladaadka ka wanaagsanaa shirkadda Nokia oo suuqa soo gelaysay. waxaa sidoo kale suuqa iyo seeladda ganacsiga soo galay shirkadda maanta Apple aad ula tartanta ee Samsung oo suuqa gabi ahaan si xawli ah u soo galeen. shirkaddan Nokia lagu magacaabo hadda caalamka inta badan lagama isticmaalo marka laga reebo taleefano yar oo loo yaqaano Soomaalida u yaqaanaan taleefan shaqeed ama taleefanada lagu shaqeeyo oo yar. guud ahaan barnaamijkeenii oo aan kaga hadlaynay guuldaradii ku imaatay shirkadda Nokia barnaamijyadeedii maanta aan ciladaheeda aan soo tabinaynay iyo saamaynta ee Samsung iyo Apple ay ku yeesheen intaasi casharkaas noogu ekaato isla socod wanaagsan. Hello guys, welcome. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz. Niggas say they run my town, I don't know how I'm a prince here, man. All we talk about is